doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalka Gambia ayaa waxaa ku guuleystay doorashadaasi Aadan Barrow sida xaqiijiyeen guddiga doorashada dalka Gambia. Madaxweyne Yahya Jammeh ayaa diiday natiijada doorashadaasi. Madaxweynaha cusub ee dalka Gambia ayaa waxaa lagu dhaariyay caasimadda Senegal ee Dakar. Safaaradda ay ku leedahay Gambia weli waxaa diidan in awoodda uu wareejiyo Yahya Jammeh. Dhaarintan ka dhacday shalay caasimadda Senegal ee Dakar. Isla safaaraddaas ayaa waxaa ka soo qayb galay dad badan oo u dhashay waddanka Gambia isla markaana ku nool dalka Senegal. Dalkani aadka u yar ayaa waxa uu xukun military uu ku qabsaday Yahya Jammeh madaxtinimada dalkaasi. Dowladda Senegal ayaa sheegtay inay u dirtay ciidamo xuduudda dalka Gambia. Sidoo kale afhayeen u hadlay dowladda Nigeria ayaa sheegay iyaguna inay u dirayaan ciidamo si loo ilaaliyo in isku dhacyo ka yimaado isla markaana shacabka. Madaxweyne Yahya Jammeh ayaa lagula talinayaa in si nabad ah uu xukunka uga dago isla markaana uu ku wareejiyo madaxweynaha la soo doortay ee Aadan Barrow.